تذكر الجنة والنار فلا تبكي جنة iyo naarta ayaad xustaa amaba saad xusuusataa markaasaanad ooyahayn watabki min hada qabriga markaad dul istaagtidna oohin baa ku qabanaysa ilaa garhkaaga ilma aad ku qoysid faqaala ina rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal ina alqabra awalu manaazil alaakhira waxaan la ooyaa buuri cuthmaan ibnu cafaan rasuulka ilaahay waxa uu yidhi qabrigu manaasisha iyo guryaha aakhiro waa ka u horeeya qofku adduunyadan marka uu ka tago ruuxdiisu jasadkiisa ay ka faaruqdo guriga u horeeya ee uu degaya waa qabriga fain naja minhu saaxibuhu famaa bacdahu aysaru minhu haddii qofku qabriga uu ku badbaado qabriga inta ka dambaysaana waa kasii fududahay inta qabriga ka dambaysa oo uu kamid yahay maxsharka soo ururinta dadka lasoo ururin doono iyo wuquufka dadku ay istaagi doonaan garoomada qiyaame iyadoo qoraxda lagu soo dhaweeyey wain lam yanju minhu famaa bacdahu ashaddu minhu haddaanu qofku qabriga ku badbaadin qabriga mawaaqifta iyo manaasisha aakhire ka dambaysa ayaa kasii adeeg iyo dhibaato badan buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam taasaa iga ohinaysa buu leeyahay cuthmaan ibnu cafaan qaala wasamictu rasuula allahi yaquul maa ra'aytu mandaran qatu ilaa walqabru asbacu minhu waxaa kalaan maqlay bu uhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo le maan arag wax la eego oo ka dhibaatiyo argagax badan qabriga rawaahu tirmidi wabnu maaja bisanadin xasan waxaa walaalayaal xadiidkaasu ina tusinayaa qabrigu inuu yahay halka ay ka bilaabanto qofka shaqaawadiisa ama sacaadadiisu oo qofka qabriga ku badbaada ee naciim ku helaa inta dambena uu badbaadi doono qofka qabriga lagu cadaabo